ها هند كلي وسيدة حتى وموقته waxaan isleeyahay mala ilaa derbiga uu soo taabto xasan inta badan isma bedelo laakiin waxay u muuqataa inuu rabo aragtidiisa inuu dalka kala kaxeeyo waayo wuu arkaa Somaliland inay hore u tagtay Puntland hadda initiative inay fog inay sii qaadanayso sii socoto oo lacaga iyo laga fikirayo Republic of Puntland wax la yiraahdo iyo Puntland Forest iyo umur badan baa soconaya Jubaland already waad aragtay meesha ay taagan tahay gobolkan gada ugu soo dhawaa isagana Addis Ababa markii uu tagay intii badnayd Jubaland isku dhinac bay isugu duwatay Khartoum waxaad moodaa iyadana in sidaas oo kaleeto ay maaragtay waayo madaxweynaha Puntland labada qodob Jubaland labada qodob uu kaga tagay waxay ahayd had timaado Puntland iyo Khartoum haddii gobolka Banaadir inuu ka mid noqdo shirweynihii qaran loo astay Khartoumna de gobol baa loo aqoonsaday inta ay isbedel maamul ay sameynayaan muddada 2 sano ay qabteen marka haddii hay'adihii kale iyo wasaaradihii kale movementigooda ay ka qayb qaadanayso way aanay uga qayb qaadanaynin golihii amniga qaranka iyaduna waa mushkilad kaleeto oo maaragtay fogeynaysa ama fogeysayba dhammaan maamul goboleedyadii sidaas la mid ah waxa socda gobolada dalka inay maaragtay su'aal isweydiin ay ka socoto caasimadii laftigeeda aad arkayso in la buuli gareyn marka ninkan dalka inuu kala kaxeeyo halka lagu socdo waa halka in laga qabto in dib kale noqonayso dadaal badan baa socda is-abaabula socda laguma daawan doono haday abu ku soo sheegay weydiiyay in lagu daawanayo laguma daawan doono waxba laga qaban doonaa marka waa maasantahay qofka xiga salaamaano Okay akhyaaray waa mahadsantihiin aad iyo mahadsantihiin waxaan u malanayaa Maxamed Aadan واسين نبان مايا هذا ما سليمان وما هذلين دقيقة عليه أوكي دار هذا كويس دار بسرعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكي أما أقول كيجا سليمان إيوه إيه دمان مرشة مرتدى قيمها بدل باش كيست عارفها أد بان وفرح سنة خلاص إن محاضر وش ده إن نفرطه مداره دوس أولي وبرنامج شيء ده دورنا دراسة عضو فرقلية انت هاد بديت انا مسألة ويدين مايو وحنا سلايا حي نينك درقسان بانا حي وحنا عيا نينك يري بانا حي بلو جيدي طلو صدح بلو ما حيسان والله بوسن حيسان يوتيوب كي يتقارك كرتاب عليه طلو ميل انقع انت كلاقارنو من نجين دونا ميل دوليقو كجارو ودانت مثلا ميل ان لسوق كمان دونين وأن عن يحرج يدول اللي جارين بو نجين دونا ورتعال كيف يقطع هيو دول دافتي حدث وحصل روا كو إن أنا قمر خاطر هنا dadka baraha bulshada laga howlgeliyay bila aqoonta iyo bila fahamka iyo bila garashada ah ee soo yaacay oo waxna difaaci karin oo lacagta ku baxayso sida ogtihiin baarlamaankii waxa lagu bixiyaa lacag aan caadi ahayn dad lacagtii mushaarka ay qaadaan 5,000 iyo xogaa marka loo kale 5,000 oo kala dul saaro loo saaro ayaa warabul ciise jirta waan la qaadno anigu aruga dadunta Saleemaano maalin maalmaha kamida hatta magacooda waa sheegi karaa hebel iyo hebel way waxaan rabaa markaa inaan marka ugu horeysa qodobkayga koowaad inaan u soo qaato inaan difaaco waxa la yiraahdaa dad baa yiraahdaa musharax kasta wuxuu yiri dastuurka ayaan dhamaystirayaa iyaga oo raba inay socodsiiyaan xasan balantii ay shalay nin waliba uu yiri ayuu hadii lay ku roon yahay ayagu limid yahayo dastuurku dhamaystiraya macnaheedu ma ahayn dastuurka aniga isku dhamaystiraya oo dhamaystiraya shaati ka taranaya waxay uga jeedeen si loo dhan yahay iyo si dastuuri ah ayaan dastuurka u dhamaystirayna qof iyo cidna si macquul ah oo heshiis lagu yahay oo guddigiisa heshiis lagu yahay oo habka wax loo dooranayo heshiis lagu yahay baan dalka ku gaarsiinayna marka kelmad weyd ah oo caata ah oo ilaahu ya maqaarkeedii nooga celiya oo waxay yiraahdaan nin waliba wuxuu yiri dastuurka waa dhamaystiraya marka xasanna waa dhamaystiraya macnaheedu ma ahayn waa dhamaystiraya aniga isku dhamaystiraya waxaan ku dhamaystiraya qof iyo aniga ku soo dhamaan doonta aakhirka qof iyo xabad
qodobka markaan isaga halka ku soo xiro kelmadii aan hore u iri meesha oo meesha hadda taagan iyada waan ka hadlay xasan cabsida hor taagan baan doonayaa inaan dul istaago xasan indala-aanta iyo qababacda iyo waxaan mangalka ahayn ee gidaar rajiirka ee maaragtay saaran maxay yihiin waxaan waa li way dhaafeen xasan qabyadii horta hor taaganta qabya ninkeeda dhamaystira weli qabyadii waa hortaallaa wuxuu aad uga cararayaa oo hortaagan oo ku riyoodaa teendhadii sanduuqii caddaa ee lasoo hormarayey ee madaxweyne ee lalahaa farmaajo xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur sheekh shariif ee qof walba meesha loo fadhiy iyo washamsi marka wuu ogyahay inuu meesha dhaafayo cabsi waxaa ku jirta marka qayral caadi oo indha cadayskan waxaan keenaya caqli kaleeto oo meesha ka kaxayna meesha waa ku mintidu doonaa waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo haddii ay ka fursan weydo intaan waan ogahay magaalada muqdisho way howlgelaysaa waxaa wada shiray maalin dhaweed nin jacfar iyo ninka la yidhahdo cabdiqaybdiida way shireen meelaha ay wakiilada ka kala yihiin waa ognahay sheekh shariif waa idinka og saraakiil fara badan oo diyaar garoobaysa waan ogaa ilaahay hortii dadku xaax bay taagan yihiin gaajay la wada leecayaan naftii baa iskugu timi barakacayaashiibuu barakacayaal haddana kasii dhigay waa wax sagaan iyo hirad iyo dhammaan madasho waxaan idiin sheegayaa iyo cali warsambo wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi inaanan ka wada weynahay xataa inaanan suuraysan waxaanay dhici karaan iska daa wax kale in aanan suuraysan kanoo kale inay dhici karto aan kusoo gabagabay horta waxaan ka qabaa horta mid waan oga saleebaanow dugaaggu waxbuu uriyaa meesha ay wax ka jiraan hadduu ugaarsanayo iyo hadduu wax raadinayo iyo hadduu baqayaba waxbuu uriyaa ibni aadamkuna waxbuu raadiyaa oo raad buu dabagalaa dhibtan jirta xasan abay baddeenna in nala soo haweysto hal waxbaa keenay jigjiga waa xorriyadna uma baahna ninkii intuu jigsiga yiri tegey muxuu ahaa ninkii yiri inuu xasan yahay abay waa ogyahay etoobiyaankuna waa ogyahay damiirka iyo aqoonta waxaasan u leeyahay siyaasad hiddaha uu leeyahay iyo hibada uu leeyahay iyo daacadda uu dalkiisu leeyahay intaba waa ogyahay etoobiyaanka iyo abay intaba waa ogyahay ninkii noocaas ayaa maanta dalkan ka talinaya Soomaaliya waa raad marka raadkan la soo geliyay raadkaas waa maalintii aad hanan lahayd waa maalintaad heli lahayd waa maalin aan cid ka celinaysa jirin waa maalin xasan sheekh maxamuud madaxweyne iyo ninka jigjiga waa xorriyadna ma baahna tiiba horta la soo gelisay raadku taasoo nagu soo gabagabay haddii tay kelmad aan idin lahaa oo ah dadka taageera wadada caqli siiyay dad caqli raaciyay ma iyo doq wallahi baan u raacay anigu waxaan ka soo jeedaa xasan marna waa artay marna waa inaad arkay wardhigilayaan ku dhashay ku koray asalka loogu tagaanahay habeenkii waa dhurwaayeeya waraabahaas adduunkaan ahay maalintiina dadkaas aan ahay ma garanaysaa aan kusoo koobo marka عوس وين عيدن كي كوبا أيبا مقدشة تلي سكوي با صعب ككرت عيا جواهر برق برق ضمر عيدن كي بقول يستي عمر كان لها ورصف عيدن لو دلي سلع يقعدون دلي قرمت لقى ساهدي ساد كينا لقى شري سفتي عدوغا لقى هلي غيري سبادة نوتال تعسيبا سوغين يسوف أن يالو أمريكا السيطة هي السيحنا يا منقا سبابية منقا سيدي وجدو مركا dadka la aragtay inay taageersiin mudaan ee qabyaalada ay ku taageerayaan war maaha war qabyaalada waa la iska leeyahay war waxa la qaxinayaa waa isla reerkii oo wallahi iyo billahi iyo tallaahi dadkan magaalada muqdisho ka ooyay habaaramaya quruudkan arkaysaa oo isla reer